komishinka doorashooyinka ee Somaliland ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta xarunta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa waxaana ay ka waramayaan xaaladda tirinta codbixinta doorashadii ka dhacday Somaliland waxa halka goob joognooga Maxamed Cabdi Ili agaasimaha guud ee Home Cable TV oo aan weydiiyay Maxamed maxaa ay sheegeen oo ugu dambeeyay oo wara komishinka doorashooyinka ducale waad mahadsan tahay guddida doorashooyinka qaranka Somaliland oo ilaa fiidkii caawa aanu ka sugaynay wararka la xiriira arrimaha tirinta codbixinta waxa ay guddidu sheegaysaa in iyagoo safar ka soo galay goor dhaweyd abaaro 7 iyo barkii fiidnimo oo ka yimid deegaanka loo yaqaan Gabiley oo ay sheegeen inay cabashooyin iyo waxyaabo jira ay soo eegayeen ayaa waxay guddida doorashooyinku sheegeen in tirinta codbixinta gobolada iyo degmooyinka Somaliland ay deegaamooyinka qaarna ay ka socoto magaalada Hargeysa oo kale sida ay sheegayaan oo aniga laftaydu aan ku soo arkay indhahayga in aanay bilaabminba wali tirinta codadka ee gobolka Maroodijeex oo dhan oo leh 270 goobood oo codbixinood sidoo kalena codkiisu yahay in ka badan 230,000 oo cod uu yahay aan tirinta codadka la bilaabin wali tiradii way socotaa oo aad baana loogu howlan yahay howlwadeenadu waxay ku dhex jiraan sidii ay u tirin lahaayeen sidaanu idin sheegnay galabtaba wali degmada Hargeysa waa diyaar hadda iyadu baribe subax bay bilaabmi doontaa tirinteedii laakiin degmooyinka kale oo dhan wadanka 20 degmo kale way ka socotaa tiradii waxaan ku rajo weynahay in kolbada marka la tiriyo hadana dubaa loogu noqon doonaa marka dambana gobolkay u soo gudbi marka ugu dambeysana waxay u soo gudbi doontaa halkan xafiiska dhexe ducale waxay guddidu carabka ku adkeeyeen oo si xoog ugu adkeeyeen oo ay dadafeeyeen inay ilaa iyo hadda jirto wax natiijo ah oo rasmi ah oo ilaa hadda iyaga ka soo baxday waxa ay ka digayaan oo si xoog uga digayaan gudoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka iyo afayeenka guddida doorashooyinka qaranka ahna ku xigeenkiisa mudane Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo waliba Saciid Cali Muuse oo iyagu ka shaqeynaya guud ahaanba gobolka Maroodijeex iyo cabashada guud ee gobolada iyo degmooyinka dalka iyo arrimaha la xiriira doorashadaba waxa ay sheegayaan inay arrintaasi tahay arrin aan loo baahnayn in natiijo aan iyaga ka soo bixin ay dadweynuhu qaataan mar aan su'aal ka weydiiyay arrintaasina waxa ay sheegeen waxaanu doonaynaa inaanu dadka u sheegno horena waanu idinku sheegnay imikana waanu idinku celinaynaa ma jirto wax ka soo baxa komishanka doorashooyinka qaranka mooyaane wax kale oo lagu rasmiya oo natiijo ah oo soo baxaysa ma jirto haddii natiijo soo baxdo komishanka ka soo baxaysa waxa kale ee la isla wareegayo ama la isla dhexmarayo ama cidii dabaaldegaysa taasi iyadii jirta taana waliba talaabo ayaan ka qaadaynaa cidii waxa ku kacda ee xusas samaysa ee dabaaldeg samaysa talaabo sharciga waafaqsan ayaanu ka qaadaynaa waxa weeyaan waxa soo qaaday Hargeysa wali maanu tirin lamana bilaabin haddanu qaban qaabadeedii markaanu hadda ka soo noqonay Gabiley galnay oo systemkii u saxnay marka baris wax bala bilaabaya xisbiyadina way joogan 10 xubnood baa u jooga waad weydiin kartaan haddaba maxaan u diidaynaa ama maxay qalad u tahay ama maxay dhibaato u keenaysaa in jawaab ama la sii sheego natiijo soo baxday maxay u keenaysaa waxaan kuu sheegayaa inay keeni doonto isku dhac inay keeni doonto kharbidaad wadankan ku dhacda waayo haddii imika ay natiijo hayaan muraaqibiintan waad soo qaaday natiijay soo qorteen oo goobtii ka soo qorteen natiijada markaanu hadda bilowno sixideeda waxa laga yaabaa inay hoos u dhacdo oo isbedesho ama kor u kacdo tay hayaan iyagu maxay yeelayaan marka jawaabteedii ama natiijadeedii ama wixii aan soo saarnay uu ka duwanaado wixii suuqa yaalay soo isku dhac la keeni maayo good example waan kuu sheegayaa haddii xisbi helay 10
goobtii ka soo helo looga soo qoray oo D1 formkii loogu soo qoray 10 oo markaanu hadda jeegarayno in beri baan bilaabaynaaye laga yaabo 3 cisho inay nagu qaato maalin afraadka aanu soo saarno in loo qaldamay 3 ama xisaabtii isu geyntii la isu keenayay qaldantay maxaa dhacaya suuqii waxa laga yiri xisbi hebel wuxuu helay 10 oo annaka wadana annagu markii aan wixii isu geynayna waxa la ogaaday in xisaabtii isu geyntii qaldantay oo aanay 10 ahayn 6 tahay afar soo ma dhina isku dhaxalka ma yimiye khilaaf waxaanu ka horteginaa waa khilaaf waxaanu diidaynaa waa khilaaf sunna waxaanu idin leenahay xisbiyadu ka waantooba hadday jirto ka waantooba inaad ku madadaalataan waxaan hayaa anigu maxayday jadwalkii waxaan leeyahay xisaabtii ugu dambeysay ayaan haystaa oo anaa degmada ku horeeya degmadii maamanu soo saarin maanu sharciyeyn xakaad ka keentay way isbedeli kartaa waana isbedelaysaa anaga kuu sheeginay ama way ka badanaysaa ama way ka yaraanaysaa taad hadda haysatid maxaad yeelaysaa berri markaa ma taydii baa beena mase taadii baa beena maxaa loo wareerinayaa shicibka maxaa dadweyne masaakiinta ee idin siiyey fartooda idinku codeeyey maxaad shahwareerka ugu ridaysaan maxaad qulubka ugu soo abuuraysaan shalay baynu ka baxnay daraatay ahayd markii la warwarsanaa